إننا ورسعافدات كسو بحي شر أي حبنا كمدة برشة ريت كسوق مقابسي دلدا سونسا كويا شان مانتا هوتيل شامو شركة أولو واحد لا حالات ذلك مانتا مرايو عقباتها تاجن كده الشغل في السياسات يدور شوي ك الفلا اللي هرجليو جوال كبنادر arrimaha shirka looga hadlay oo dhowr arrimood ahaa oo talooyin badan laga soo saaray waxa ugu horeeyay waxay ahayd khilaafka siyaasadeed ee dalka ka jira bulshada rayidka waxay aad ugu xun tahay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka iyo hogaamiyaasha dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka qaarkood kaas oo caqabad ku noqday dhismaha iyo geedi socodka dawlad dhiska iyo amniga dalka xalka khilaafka siyaasadeed waxa uu ku imaan karaa wada hadallo loo maro sharciga iyo dastuurka ku meel gaarka ah bulshada rayidka waxay u aragtaa sii socoshada dib u dhaca doorashooyinka maamul goboleedyada qaarkood mid liddi ku ah dimuqraadiyadda iyo dawlad dhiska sidoo kale ay qayb ka noqon karaan khilaafka siyaasadeed ee jira sidaas darteed waxay ku baaqaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto doorashooyinka dawlad goboleedyada aan weli qaban oo mandatekooda dhammaaday wada hadallada waa sida kaliya ee lagu gaari karo xal siyaasadeed ee ku aadan xalka caqabadaha hortaagan doorashooyinka heer federaal iyo dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah haddaba bulshada rayidka waxa ay ku baaqaysaa dawladda federaalka in dib loo bilaabo gogasha wada hadalka siyaasadeed ee u dhaxaysay siyaasiyiinta madasha samatibixinta iyo dawladda federaalka sidoo kale in la sii xoojiyo wada hadallada u dhex mari kara dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka aragtida bulshada rayidka ee ku aadan xalka khilaafka siyaasadeed waa mid ku qotobo sidii loo heli lahaa xal waaro sidaas darteed bulshada rayidka waxa ay ka shaqayn doontaa sidii loo dhisi lahaa guddi ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka sida odayaasha dhaqanka culamaa diinka aqoon-yahanada haweenka dhalinyarada saxaafadda guddigaas waxa uu fududeyn doonaa wada hadallada dawladda federaalka iyo hogaamiyaasha siyaasadda ka aragtida duwan sidoo kale bulshada rayidka waxa ay qabanqaabin doontaa wada hadal heer qaran ah oo ay yeeshaan bulshada rayidka kaas oo laga soo saari doono talooyin xal u noqon kara khilaafka siyaasadeed ee soo dhaqdhaqday guddiga la dhisi doonana ku shaqayn doonaan xubnaha shirka ka soo qayb galay waxay isku raaceen in aan laga maarmi karin abuuritaan xafiis ka shaqeeya isku xirka iyo xiriirinta dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka si arrimaha la isku afgaran waayo talo looga soo saaro iyagoo